qisadii la magac baxday jaceylkii qalbiga iyo qaybtii saddexaad xanuunka jaceyl xisaab ma laho jaceyl xisaab ma laho tartaaxiisuhu xad kaba dhaafiyo xanuunka jaceyl xisaab ma laho tartaaxiisuhu xad kaba dhaafiyo adaan kugu xiray xiskiyaman miyaan xaas kale xabiibi dhaha oo aan xaas kale xayaati dhaha dareenka jaceyl qalbiga degay wuu ka saameyn badan yahay midka laga dhaho afka waan ku jeclahay waa hadii uu ku soo maray Zainab waatay aabaheed u carartay Cabdiraxmaan ka daba cararay ugu dambeyn wixii la cararaba hospitaalka ayay gashay Cabdiraxmaan oo la yaaban waxa ku dhacay Zainab ayaa ka daba galay isbitaalka kadib Zainab familkeedii ayay u tagtay lana qaadatay dareenka murugada waayo odaygii cidda ayaa dhiikar ku kacay muddo saacado kadib ayaa tiktoorkii ku yiri wuu caafimaad qabaa duqa niyada qeyr u sheega familka Zainab murugada way ka nusqaantay salamada Cabdiraxmaan waa uu roonaaday marxaladda ayuu wax ka ogaaday kadib Zainab hooyadeed ayaa ku tiray Zainab waa kuma inankan kula yimid Zainab way garan weyday wax ay ku tilmaamto markaasii ku tiray hooyo waa wiil aan isku fasalnahay oo isoo raacay Cabdiraxmaan wuu la yaabay sababta ay beenta u sheegayso Zainab ayaa banaanka soo baxday Cabdiraxmaan wuu ka soo daba baxay markaasii su'aalo ayay weydiisay wixii ku tiray maxaad iga soo daba doontay ayay ku tiray markaasuu yiri abaayo qalad ha ay fahmin balse anigu fasalka ayaan kugu soo booqday waliba anigoo ku raadinayo marka ku imidna kor xitaa waad ii soo eegi weyday daqiiqada kadibna adigoo cararayo xitaa buugaagta waxbarashada ka soo tagay ayaan arkay sidaa ayaana kaga soo daba cararay balse waan ogaaday sababta ka dambeeyay inaad soo cararto aabana wuu caafimaadaya niyada khayr u sheeg ayuu ku yiri way dibacdo sheeka ayaa halkii kaga bilaabatay ilaa laga gaaro casirkii Zainab iyo Cabdiraxmaan way wada qoslayeen way sheekaysanayeen Cabdiraxmaan waa farxadiisii oo waa iska jeclaystay inuu ka ag dhawaado dhanka kale Zainab hooyadeed ayaa dhakhtarkii la kulantay ayagoo isdhaafsaday goorta duqa la wadayo oo xaalkiisii halku marayo dhakhtarka ayaa u sheegay in 7 cisho lagu haynayo hospitaalka si xaaladiisa loo dajiyo Zainab marnaba maysan ka tagin hospitaalka oo aabaheed ayay la joogtay si lamid Cabdiraxmaan waa uu baxay gurigiisa ayuu tagay waana soo laabanayay oo hospitaalka ayaa hooy u noqday la soco qaybta xigta laagsaar siina sheer garay asxaabtaada layamalo nikuyeela u xidhay yarantiisi ku helay yalaal baray oo yamini wuxuu yahay uu yaqaan inaad page-kiina like iyo follow aad tiraahdo ama aad subscribe saarato